boqor Axmed Iimaan Warsame oo kamid ah boqorada waaweyn ee Somaliland oo maanta qaybo kamid ah warfidiinada ugu waramayay gudaha magaalada Boorama oo uu socdaal ku jooga boqorka ayaa ugu horeyntiiba waxa uu ka hadlay boqorku mooshin ku saabsan kordhinta xubnaha komishanka doorashooyinka Somaliland balse maalinnimadii shalay markii golaha la horgeeyay mooshinkaasi lagaga dhawaaqay inuu bareysan markaan uu qabiyo u yahay heshiiskaas saddexda xisbi ay ku heshiiyeen ay ahayd in laba xubnood lagu daro komishanka doorashooyinka wuxuu u dhigmaa waxa ku dhex jiray iyadoo markii horeba ay ceeb inagu ahayd inay dowlado ama dad shisheeye ah ay noo dhexdhexaadiyaan haddana waa laga maarmi waayey oo ergiga AU-da u qaabilsan Soomaaliya Somaliland ayaa heshiiska ku dhex jiray goobjoog ka ahaa saddexda xisbi qaran iyo madaxweynaha oo isaguna saxeexay heshiiska waxa ayaan daraa heshiiskaasi xal buu ahaa oo loo arkayay inuu moogtahay waddanka inoogu badbaado oo moogtahay baarlamaanka loo horgeeyo marka waxay khuseysay baarlamaanku haddii uu diido uu yidhaahdo 7 unbaa imika lagu gelayaa in xisbiyada kale ay ku qanacaan labada xisbi qarni macaaridku haddii ay ku daraana in sidaas moogta lagu hirgeliyo oo xal ayuu ahaa laakiin waxa ayaan daraa labada xisbi moogtahay waddan iyo ucid way u badheedheen isagoo kulmiye aqlabiyadda ku leh golaha inay moogtahay la horgeeyo baarlamaanka ama ha diidaan ama ha yeelaan iyagoo maslaxadda eegaya moogtahay ummadda Somaliland waxaaba ka soo hormarayba in yaro sharci yaqaan baa yiri arrintaas ma soconayso diidada oon xaq baba u lahayn diido soo jeedin uu ku lahaa oo ila sharcigu waxaaba ka qabaa laakiin inuu diido oo baarlamaankiiba mooshinkii oo la wado uu yiraahdo waxba kama soconayaan waxay ceeb ku tahay Somaliland waxay ceeb ku tahay madaxweynaha amarkiisuna soconeyn ee tixgelin la siineen isagoo yiri hal la geeyo marka arrintaas waa arrin ay ka dambeeyaan xukuumadda kulmiye waxay ka helaamayna leeyihiin waddanka adduunka waxa la arki jiray dowladda iyadu nabadda ilaashata dowladda dadka isku keenta dowlad wax badan ka tanaasisha dowlad iyadu meel dab ka baxayo baasiin ku sii shubisa tan kulmiyo ma la arkaa sidoo kale boqor Axmed Iimaan Warsame isagoo sii wata kulan warbaahineedka waxa uu ka hadlay sawir maalmihii u dambeeyay si weyn u haystay baraha bulshada oo ku saabsan sawir wadajir ay wada galeen waftiga uu hogaaminaya madaxweynaha Somaliland ee ku sugan dalka Sacuudi Carabiya iyo xubno wasiir oo ka socday dowladda federaalka Soomaaliya meesha madaxweynuhu wuxuu u tagay dambi dhaaf cibaado wasiirada kalena waxay u tageen meeshan inay dambigooda ku soo dhaafaan meel siyaasadeed ma ahayn markuu shakhsigu intuu xajka tago uu doonayo inuu Ilaahay dambigiisa dhaafo isagana waxa ku waajibay inuu shuruudo badan buuxiyo inuu dadku dheer cafiyo oo la saamaxo taaba lagu dhaaf karaa laakiin waxa loogu haystayna biixi dambi kuma gelin meeshayna biixi ee isagu dhibaatadu sameyn jiray oran jiray dad baa cirka eego cirku buluug buu leeyahay xamar baa la tagayo dadka lagu xidhxidhi jiray ayaa la tusiyay inuu qalad moogtahay hore u gali jiray xukuumaddiisu laakiin xagga khalad kuma u gelin Soomaad garan marka taay sugan baa la tusiyay qaladku ku gali jiray dadka oo loo jiray xamar baa la eegay xamar baa la tagay raxmar baa la salaamay cirkaas loo eegay cirku madow buluug buu leeyahay qaar baa lagu xidhi jiray Soomaad garan Soomaaliya ugu dambeyntii boqor Axmed Iimaan Warsame ayaa waxa uu meel adag iska taagay arrimaha ku saabsan saami qaybsiga in magacii Somaliland meesha ka baxo marka la yiraahdo qof walba war Somaliland la wada leeyahay oo aynu hal helo oo saami qaybsigeeda hal helo oo haloo sinaado xilka oo qandaraashada haloo sinaado ay dawladdu ka cadhootaba marka la Somaliland la wada leeyahay lama maqlayo Somaliland la kala leeyahay baa imanaysa marka wax laga yaabaa inuu ka baxo magacii Somaliland oo isaaqlaan noqoto la Somaliland waxa lagu wada leeyahay bari galbeed iyo cid walba oo Somaliland ay tahay waa wax la wada leeyahay marka la diido
dowladdan kulmiye ay diidaan ay yiraahdaan ay ka xanaaqaan Somaliland la wada leeyahay oo saami qaybsiga ay ka xanaaqaan waxa soo dhan dadkii kalena way tashanoo waxay la bixiguna laantay magac ku darsan doonaan xaggana isaaq laan bay noqon doontaa bari iyo galbeed iyo wixii aan ahayn beesha dhexe way tashanaysaa haday diidaan soomad garan in wax la wada yeesho haddii ay diidaan dee adan meeshan berigii hore waxay ku xisaabtamayaan 19 markii la soo galay la lahaa saami qaybsiga la waday saami qaybsiga soo ku dhacay sidii dacwadii leeyahay wax qaybi beriga qori baa socday oo qori baa la haystay waxa la lahaa ma bar misabad bar mujaahidiinta sanan baa lahayd iyo moogta beesha dhexe barka kalena saba marka timaanta waa laga tagay maanta fikir baa wax lagu qaybsanayaa nabad baa wax lagu qaybsanayaa wax wada lahaasha jirta yeena ku fakirinuun 19 baa wax la qaybsaday oo qori ay haysteen waddanka la soo galeen qorigii maanta ma shaqeynayo waa Imraan Xuseen Aadan wararka muuqbaaya telefishinka caalamiga Star TV Boorama.